Adrian Carton Duarte waxaa dhalay aabihii ugu sanka dheeraa dunida waqtiga. Wuxuu ahaa arday yar oo neceb waxbarashada iyo dugsiga. Wuxuu aad u xiisin jiray dagaalada iyo ciidamada. Kadibna waxa uu ku biiray ciidankii waddanka Ingiriiska ee boqortooyadii Ingiriiska ka tirin jirtay waqtiyadii 1900. Dagaalkiisii ugu horreeyay ayaa Afrika ku galay, dagaalkaas oo la odhan jiray dagaalkii Boer. Bowdada ayuu ka dhaawacmay iyo caloosha. Soomaaliya ayaa loo soo diray. Dhig ayuu ku waayay. Dhowr cisho kadib ayaa haddana la soo daweeyay. Isha bidix ayuu mar kale waayay. Dagaalka ayuu dib ugu soo noqday. Isla mar kale ayuu isha bidix ka dhaawacmay. Belgiumka ayaa dawo loogu diray. Haddana halkaas ayuu ku caajisay oo nacay. Waxaana u soo tafaxaytay mar kale inuu yimaado Faransiiska. Halkaas ayuu dagaalka kaga qayb galay. Dagaalkana waxaa la odhan jiray dagaalkii La Somme. Madaxa ayay mar kale xabadi ka haleeshay. Belgium ayaa haddana mar kale loo diray. Waxaa haddana kaga qayb galay dagaal kale oo la odhan jiray Passchendaele. 2 xabadood ayaa kaga dhacay laabta iyo adinka. Mar kale ayaa loo diray haddana caafimaad. Ma inuu dhintay ayaad moodaysaa? May weli ma u dhiman. Dagaal kale ayuu kaga qayb galay haddana Faransiiska. Cabriheen la odhan jiray. Adinka ayaa haddana mar kale xabad lagaga dhuftay. Isla isha ayaa haddana mar kale laga dhaawacay. Weli wuu nool yahay, ma u dhiman. Dagaalkii labaad ee dunida ayaa la gaaray. Isaga oo 60 jir sare ugu weyn. Mar kale ayuu ciidamada ka mid noqday Ingiriiska. Waxa loo diray inuu tago waxaan ku dhahdaa magaalada Qaahira waddanka Masar. Masar isagoo ku socda ayaa diyaaradii la socday. Sidii isaga iyo janaal kale ay dhacday. Badda ayay gashay. Ma u malaynaysaa inuu dhintay? May wuu nool yahay. Mar kale ayaa ciidamadii faashiistaha ee Talyaaniga haystay ay qabteen. Waa marka uu ku dhacay badda ku dhacay ee diyaaradiisa ay burburtay. 2 sanadood ayay xidheen. Wuu nool yahay weli. Mar kale ayaa la sii daayay. Xorriyadiisa ayuu dib u helay. Dalkiisa ayuu ku laabtay. Mar kale ayaa waxaa loo magacaabay safiirka rasmiga ah ee China u fadhiya boqortooyada Ingiriiska. Winston Churchill ninkii la odhan jiray waqtiga boqortooyada ka tirin jiray ayaa diray. Isaga oo ku sii socda China ayaa diyaaradii isaga iyo rakaabkii kale la socday shiday ay mar kale dhacday. Dhammaantood dadka way dhinteen. Ma malaynaysaa inuu badbaaday? Waxay kula tahay weli wuu nool yahay. Keligii ayaa ka badbaaday diyaaradii damadeed waxaas wada ku dhinteen. Markii uu halkaa marayay ee uu ka badbaaday taa ayuu mar kale waxaan doonaysaa dagaal inuu galay. May marka wuxuu go'aansaday inuu iskaga fadhiisto ciidanimada kadib isaga oo jira 27 ayuu qoray kitaab la odhan jiray Happy Odyssey oo yacnaha uu wado waxaan aad u jecelahay dagaalka. 83 jir isagoo ah ayuu dhintay. Waa markii isha, labada dhagood, laabta, adimada, gacmaha iyo wadnahaba xabad ka haleeshay. Wuxuu noqonayaa askarigii ugu weynaa ugu awoodda weynaa ee noolaada.